soo dhawaada asxaabta. Maanta waxaan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo sida loo xareysto scholarshipka China ama self funding, micnaha sida loo apply gareeyo jaamacadaha ku yaalo dalka China. Okay, marka ugu horeeya waxaad u baahan tahay inaad heshid linkigaana waxaan kuu soo dhigi doonaa qaybta hoose ee commentiga. Okay, linkiga markaad soo qaadid intaad ku baasti gareynaysaa, kadib aad galaysaa. Markaad gashid okay, page-kan oo kale ku soo baxayo. Page-ka marka wuxuu ku leeyahay inaad ka samaysatid account. Okay, meeshaan ugu horeeya waxaad ku qoraysaa username waxaad rabtid ka dhigan kartaa oo magaca. Hadda anigu magacayga ku qoranayaa. Qaybtan hoosena waxaad gelinaysaa Gmail-kaaga ayaad gelinaysaa. Okay, qaybtan ku xigta waa password. Password-ka marka wuxuu kaa rabaa inaad ugu yaraan 8 xaraf aad geliso, ugu badnaana 32 xaraf. Weliba waxaa sii jirto special character wuxuu u yaqaano oo ah xaraf weyn, xaraf yar iyo calaamadaha sida ama slash waxyaabo noocaas ah. Marka anigu waxaan gelinayaa aan gashto keyga. Okay, qaybtan labaadna sidoo kaleeto aan ka celiyo. Okay, qaybtan validation code-ka uu kaa rabo waa 4 xaraf ee ku qoran geeska. Waa ZOIU baan khaldaneen. ZOIU. Then markaad gelisid sidaan waxaad leedahay submit aad leedahay. Submit markaad tiraahdid toos waxaa kuu sameysmaya account-kii. Marka hadda aniga account-ka waa ii sameysan yahay. Hadda waxaan kugu tusiyay sida loo sameysto account-ka. Kadib marka aniga sign aan leeyahay, toos account-kayga ii sameysnaa ayaan gelinayaa oo aan galayaa markaa. Okay. Meeshaan waa inaad ku aadisaa calaamadaas aad ku aadinaysaa. Okay. Kadib marka wuxuu ku leeyahay send verification code to email. Halkaana taabanaysaa ee cagaarka ah. Kooda ku soo dhacay. Okay, koodka ku soo dhacay markaa meesha gelinaysaa waa 90. Okay. Okay, inta markaa soo gashid waa inaad akhrisaa shuruucdan. Page-kan waxa waaye waa shuruuco u degsan qofka xariisanaya scholarship-ka. Waana muhiim inaad si fiican iskaga akhrisid. Weliba asaga kuu sharxayo wax walba intay ku qoran yihiin, noocyada scholarship-ka, even xataa application-kaaga qaabkuu noqonayo. So marka inta taabanaysaa application online qaybtan kore. Markaad shuruucda akhrisid oo ka bacdi halkaas ayaa taabanaysaa. Okay, markaad taabatid waxa kuu soo baxay page-kan. Page-kana kuu soo baxayo. So marka page-kan waxaa laga rabaa 3 information. Kan ugu horeeya waa inaad buuxisaa personal details kaad buuxinaysaa. Kan labaad application form kaad buuxin ka bacdi waa soo download galinaysaa. Tusaale hadda marka waxaan buuxinayaa personal information-ka. Edit aan dhaho. Meeshaan tick saaro. I confirmed that I have read and agree to all terms in the application. Okay, kadib confirm. Okay, halkaan markaad joogtid markaa waa information-kii meesha gelin lahayd. Meeshaan ugu horeyso waxaad gelinaysaa magacaaga, weliba sida ku qoran passport-kaaga. Muhiim waaye haddii wax ka khaldamaan hadhow haddii xataa lagu aqbalo dhibaato far badan kaaga imaanayso. So marka xaraf weyn ama xaraf yar inaadan isku khaldin. Micnaha waxaan ka wadaa magacaaga sida passport-ka ku qoran inaad u gelisid. Okay,
qaybtan labaadna surname-ka, magaca awowgaaga ama magaca familiga oo kugu qoran baasaboorka ayaad gelinaysaa. Okay, qaybtan ku xigto date of birth, xilligaa dhalatay. Haddii aad wax yar khaladid facalayka waaye, sida baasaboorka kugu qoran ayaad u gelinaysaa xilliga aad dhalatayna. Okay, okay, like bisha koowaad kowdeed ayaa gelinayaa. Qaybtan wadankaad ku dhalatay oo baasaboorka kugu qoranta. Okay, wadankii aad gelisay. Meeshaan genderka oo qofka aad tahay rag iyo dumar ayaad gelinaysaa. Qaybtan magaaladaad ku dhalatay. Qaybtan kore muhiim maahan, waa ka tagi kartaa. Qaybtaana ay ku qoran tahay marital statuska ayaad gelinaysaa, mandatory waa lagaa rabaa. Okay, qaybtan religion-kana muhiim waa ka tagi kartaa ama iskaga qor Islam, kale inaad Muslim tahay ku wahay. Okay, qaybtan nationality-ga waa Soomaali, laakiin asaga wuxuu leeyahay Soomaaliya, sidiis iskaga geli. Okay, qaybtan native language-ka meesha luqadaha ku jiro waa luqada Soomaaliga, meeshan kuma jirto. Marka waxaan gelinaynaa waxaa ku jirto other aan soo gelinaynaa. Okay, aan fiiriyo Soomaaliyan jegre no results found. So marka qaybta other aan gelinaynaa. Okay, maxaa kuu soo haray? Qaybtan passport number-kaaga muhiim waaye. Passport number-kaaga waa muhiim, aad gelinaysaa passport number-kaaga. Kadib qaybtan date of expiration oo baasaboorka kugu qoran, xilliga uu dhacay baasaboorkaaga ayaad gelinaysaa, waana muhiim. Baasaboorkay ku qoran tahay waad gelinaysaa halkaa. The next maxaa kuu soo haray? Maxaa kuu soo haray? Qaybtaana muhiim waa inaad gelisid. Qaybtan lambarkaaga gelinaysaa. Okay, qaybtan lambarkaaga gelinaysaa. Gmail-ka soo hore kuu geli. Haddii Gmail kale aad waa gelin kartaa, muhiim maaha, mandatory maaha. Qaybtan kuu soo hartay widget ID ama SKB, labada midkood ayaa lagaaga baahan yahay. Widget-ka ama midkood inaad gashatid waa labada midkood. Okay, soo soco address-ka. Address asagana mandatory muhiim waaye, inkastoo wadankeena address sax uusan lahayn, laakiin waad gelinaysaa. Sida hadda anigu waxaan leeyahay kilometer 16 waxaan dhihi karaa midnimo comment Muqdisho Soomaaliya. So marka address noocaas ah ayaa u baahan tahay inaad gelisid, ama address sax ah inaad gashatid waaye. Okay, emergency contact-gana waa qof haddii xaalad emergency ay ku qabsato lala xiriiri karo, macnaha bani aadan hata waxaas kugu dhici karo. Marka magaciisa aad gelinaysaa, halkaana waxaad gelinaysaa genderka, waxa uu yahay rag iyo dumar. Qaybtan waxaad gelinaysaa qofkaas waxa isku tihiin ayaad gelinaysaa. Ay ku qoran tahay in aad ilmahaaga inuu yahay iyo saaxiibkaaga iyo dad kale ama familiga qof ka mid ah, ama waalidiinta, walaalkaaga, xaaskaaga ama gabadha ku doon waxyaabo noocaas ah. Waa gelinaysaa qofkaas waxa isku tihiin. Then qaybtan waxaad gelinaysaa telephone number-ka gelinaysaa oo qofkaas uu leeyahay. Qaybtan address-kiisa gelinaysaa, halkaan imaaw. Intana Gmail-ka uu leeyahay ayaad gelinaysaa. Okay, intaas markaa gelisid kadib waxaad leedahay marka verify and save aad leedahay. Markaa saas tirahdid qaybtaas personal information-ka waa buuxisay. Maxaa kuu soo haray? Qaybtan education and employment history. Qaybtaana waad furaysaa, sidoo kale waad buuxinaysaa. Qaybtan waxaad ku qoraysaa education level-ka oo hadda heerka aad ka joogtid waxbarashada. Haddii batch haystid ama dad master haystid, waxa markaas aad haysato, macnaha level-ka ugu sarreeyay ee shahaadada aad haysato ayaad gelinaysaa. Hadda anigu waxaan leeyahay waa bachelor degree waxaan haysto, aan geliya. Qaybtan field of study oo ay ka tirsan tahay waxa aad baratay waa medicine and surgery aan leeyahay aniga. Adigu waxa waa gashan kartaa. Okay, country of institute, wadankaad ka qaadatay shahaadadaas aad gelinaysaa, like Soomaaliya.
Okay. Ah, sidoo kaleeto qaybtan maxaa la dhihi jiray institute name jaamacadaada aad ka qaadatay ama haddii iskuul tahay oo shahaado dugsi sare ah haystidna iskuulkaaga magaciisa aad gelinaysaa halkaas. Okay, qualification micnaha nooca waxa aad baratay shahaadada nooca ay tahay. Tusaale hadda aniga MBBS waaye haddii markaa waad gelinaysaa taada nooca ay tahay adigaa garanayay. Okay, years attended sanadka aad ku biirtay jaamacadaas iyo sanadkii aad ka qalin jebisay aad ku qoraysaa halkaas. Qaybtan labaad shahaadooyinka kale ee aad haysato ayaad gelinaysaa educational levelka ay tahay ama ha noqoto xataa qaybta iskuulka waad gashan kartaa meeshan. Dhammaan marka intaan waad gelinaysaa. Qaybta ugu dambeysana waxaa waaye employment history shaqada ama work experience-gaaga ayaad halkan ku buuxsanaysaa. Meesha ka shaqeysay, title-kaad ka ahayd iyo muddada aad shaqeynaysay. Okay, waxaasoo dhan baad gelinaysaa. Ta ugu dambeysana receipt the date. Okay, qaybtan waxaa waaye title-ka, employment duration-ka, xilliga aad bilowday ilaa xilligii aad maxaa la dhihi jiray haddee barsanta ilaa hadda aad ku jirtid iyo xilliga aad shaqadaas joojisay ayaad gelinaysaa. Qaybta ugu dambeysay other contacts-kana muhiim maaha laakiin waad buuxinaysaa. Okay, other contacts lagu weydiina waxaa waaye name of contact person or organization in China, emailkii waxaa haysato waad gelinaysaa, spouse-kaagii, father. Okay, all of them meeshan wax muhiim ah kuma jiraan oo mandatory ah laakiin waxaa kuu fiican inaad iska buuxbuuxisid dhammaan. Marka qayb kasta markaad dhammaysid waxaad leedahay verify and save. All qayb kasta waxaad leedahay verify and save. So marka muuqaalkeena maanta intaas ku ekeysiinayna qaybta labaad kala soco insha Allah dhamaystirka muuqaalka ama programkan. Thank you so much.